qaar ka mid ah qoysaska ay abaartu saameysay ee ku dhaqan tuulada Dixile iyo Jalanqo oo ka mid ah deegaanka Lagdheera ayaa la gaarsiiyay raashin deeq ah kuwaas oo soo dhaweeyay bariis baan la siiyay sokor iyo bur iyo saliid way mahadsan waxay noo keeneen ariga maxaa ka dhimatay 80 way soo hartay isiyade boosho iyo sokor iyo bariis oo arka iyo saliid walaal baa mahad leh ilaahay baa mahad iyo shukri iska leh siday doonaan san Allah si oo mahadsantiin bur saliid majaani sokor yaa liisiya oo mahadsantiin baay saayidaan qabnay waliba xoolay aan haysanaatay naga dhamaadeen arigu naga dhamaaday bulshadani xoolahooda abaartu dhaafisay ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan raashinkan waxayna u mahad celiyeen dadkii deeqda gaarsiiyay markay ani Dixlaan degan yahay Dixlaan ka imaaday maxaana la siiyay raashin shukriya aadan baa leedahay raashin maxaana la siiyay cusbo le bariis le sokor le jumbi le baashi majaani saliid le xalay boosho le alxamdulillah ilaahay waa mahad iska leh xoolaha ayna daraati koreysay guuraan barna gaari laba dabaqaad roobarna maxaa la jiray ee u sii lugaynayna dhaxda saaka aabaan la hadlay xuleeyaha dhaxdan sii guurayna marka wadaadadan way mahadsan yihiin 190 khayr Allah siiyo way xoolihii wixii un alisiyeena wax dhamaaday waxada noolbo waxaan gacan ku hayaa male Dixlaan deganahay wixii hadda aan haysto oo ama caruur ama dad ahna waxada anfac oo hayo maanta wixii Ilaahay og yahay waxaan aan u hayo male walaalkii isoo booqday raashinkan ii keenay sokor iyo caana iyo cusba iyo majaani iyo bariid iyo boosho keenay way mahadsan yihiin garabkooda Allah garo garabkooda Allah garo aakhiri adduun baa Allah liibaano cunadan ayaa waxaa qaybisay mu'assasada Al-Rayyan Charity Association oo ah hay'ad khayriya Sheekh Mukhtar Maxamed oo mas'uulka hay'adda Al-Rayyan Charity oo soo ururiyay deeqdan raashinka ayaa ka warbixiyay cunada ay bixiyeen Ilaahay baa mahad iska leh waxa kale oo mahad mudan oo in loo celiyay ay tahay dadka muxsiniinta ah waxna soo dhiibay iyo wixii kale hadda ku talajir inay mataqaana dadka ay ku caawiyaan aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa Ilaahay waa fadliga Ilaahay weeyaan ka kooban yahay bariis boosho bur saliid sonkor milix ama cusbo waxa loo yaqaano iyo majaani ama rinji ayuu ka kooban yahay sida waxa kale oo jirta iyadana waxaanu qaybinaa oo dadkan gaarsiinaa dad badan waxa jira iska qaawan dharkan qaybinaa dadka noo keena maadana inagu aanu sii geynaa meelaha looga baahan yahay marka waxaan codsanaynaa aad waliba aanu soo codsanaynaa dadka muxsiniinta ah wixii waxay kala dibad iyo dalay dibadda inay soo gaarsiiyaan si annaguna aanu Ilaahay ajraadii aanu u gaarsiino dadka mataqaana u baahan qaybo ka mid ah deegaanada koonfurta Wajeer iyo Dadaab ayuu sidoo kale cunno noocan oo kale ka qaybiyay 30 qoys baan soo gaarsiinay hadda dadka inta aan siinay 30 qoys oo ka kooban Jalanqo iyo Dixile ayaa soo gaarsiinay 15 iyo 16 iyo 14 waxaan horey u soo qaybinay 9 iyo 2 qoys oo Wajeer South iyo bishii hadda daraataan soo qaybinay waxa kale horey aan u soo qaybinay 8 qoys baan iyana waxaan u qaybinay Wajeer South iyo Lagdheera Dadaab qoysaska raashinka la siiyay ayaa isugu jiray waayeel agoon iyo naafo waxayna ahaayeen dad jilicsan oo baahi badan u qabay raashinka la siiyay Maxamed Baarud Xuseen warbaahinta Star tuulada Jalanqo deegaanka Lagdheera.